waa magaalo yar oo aad u degan. Dadku waxay dareemaan nafis ay ku quraacdaan, ku qadeeyaan kuna cashiyaan. Waxay wax ka iibsadaan general store. Waa meel dadku aan xataa quflin albaabadooda. Waxay dareemaan ammaan buuxa oo aan wax cabsi lahayn. Laakiin 24 November 1989 jawigii waa isbedelay. Mandy Stavik wuxuu u baxday socod iyadoo wadata eegeeda. Eegii waa soo noqday laakiin Mandy ma soo noqon. Hooyadu waxay tiri markaan arkay inay soo noqon waa naxay oo waa nagagaxay. Waxaa bilowday baadagoob weyn. Dadkii waa ay wada bixeen iyagoo raadinaya gabadha. 3 maalmood kadib waxay heleen meydka Mandy. Meydkoodu wuxuu dul sabeynayay webiga South Fork ee Noxag River. Dadkii deegaanka waxay galeen argagax buuxa. Waa maxay sidani? Qof dila ah miyaa banaanka jooga? Su'aashuna waxay noqotay miyuu soo laaban doonaa falkani mar kale? Cidi lama haynin. Mandy waa ay dhimatay, laakiin kiiskeedu waxaa lagu bilaabay baaritaan. 2 habeen ah oo sheekeysanaysay ayaa noqday isbedelka ugu weyn ee kiiskani. Mid ayaa tiri anigu waxaan aaminsanahay in Tim Balsa uu dilay Mandy. Mid kale ayaa ku sii dartay aniguba sidaas oo kale ayaan aaminsanahay. Inantani waxay u baxday oroda iyadoo ka timid gurigeeda kuna socoto dhanka waddo markaasi la yiraahdo Strand Road. Qofkii ugu dambeeyay arkane wuxuu ahaa darawal baawur wada oo arkay iyadoo socota dhinaca keenta. Eegii waa la tuuray. Mandyna waa la afduubay. Si xun ayaa loo kufsaday. Waxaana la tuunsan yahay in ay isku dayday in ay baxsato jirkeeda. Waxaa ka muuqdo xagashooyin badan oo muujinaya inay halgamaysay. Ugu dambeyntii waxaa la rumaysan yahay in lagu dhufto madaxa si loo suuxiyo kadibna lagu tuuray webiga. Qayb ka mid ah familkeeda oo la ilaalinayay ayaa suurtageliyay in DNA la helo si gaar ah minidii dilaaga. Waxaa la tijaabiyey ilaa 30 nin oo deegaanka ah. Waxay dhammaan noqdeen kuwa aan la xiriiri karin falkani ama aan wax looga ku lahayn. Sanado badan kadib 2013 2 habeen ah ayaa ka shakiyay nin la yiraahdo Tim Balsa oo ay hore ula kulmeen. Wajigiisana waxa markaasi ka muuqanaysay cabsi aad u xoogan. Tim Balsa wuxuu markaasi deganaa meel aan ka fogeyn guriga Mandy, laakiin marnaba lama weydiinin DNA sababta. Qoyska Balsa sharaf weyn bay ku lahaayeen dhanka bulshada. Mar la weydiiyay DNA xitaa wuxuu yiri maya anigu wax DNA ma dhiibayo. Waxaan daawadaa barnaamijyada dambiyada. Dad badan ayaana xabsiga ku tagay arrinka islaashiyaha DNA-ga ayuu yiri. Markaas ayay boolisku daba galeen. Ugu dambeynna waxaa caawiyay qof aan la filanaynin. Maamulaha shirkadda uu ka shaqaynayay oo lagu magacaabo Kim ayaa waxay heshay koob caag ah oo Tim wax ku cabeeya waxayna siisay booliska. 3 bilood kadib waxaa la helay DNA isagu leeyahay waxaana isku mid noqday kii laga helay Mandy. 12 December 2017 28 sano kadib dilka Mandy, Tim Balsa waa la xiray. Markii la weydiiyay sida DNA-giisu ugu jirto Mandy ama loogu dhexelay wuu inkiray, laakiin mar dambe wuxuu yiri aniga iyo Mandy waan isku galmoon jirnay oo xiriir ayaa naga dhaxeeyay. Mandy weligeed kama sheekinin xiriir la mid ah mid uu sheegayo Tim. Qoyska, asxaabta, xitaa saaxiibadeeda qofna uguma waramin arrinkaasi. Waxaa la rumaysan yahay in uu been u sheegay si uu iska dhigo in uusan kufsanin inantani. Kiiskii wuxuu galay maxkamadda waxaana caddeyntu ay noqotay mid xoog leh. DNA la mid ah, dabeecad xun oo hore u muujiya haween kale, xasuus been ah oo uu ka bixiyay Mandy, diidmada DNA oo markii hore loogu soo jeediyay inuu sameeyo. Ugu dambeyntii Tim Balsa waxaa lagu helay dambiga dhab oo kufsi, afduub iyo dil ah. Mandy Stavik waxay ahayd ardayad, ciyaartooy, gabar firfircoon oo leh riyooyin badan. Geerideeda waxay ahayd dhaawac qaran oo kale. Xaaskiisii hore ee Gina waxay sheegtay inuu isku dayay in hooyadiis uu been u sheego si ugu leexdo kiiskani kuna tirtiro aabihiis oo dhintay. Walaalkiisa Tom Balsa wuxuu sheegay Tim waliba uu ka codsaday in uu been u sheego booliska si uu u muujiyo in Mandy la seexatay rag badan. Sidoo kalena wuxuu isku dayay in Tom uu sameeyo waxyaabo fara badan oo been ah. Kim Wagner oo ka soo shaqaysay helitaanka caddeynta DNA-ga waxay markhaati u noqotay dacwadan iyadoo sheegtay in sidaas ay ku sameysay sidii Mandy lagu heli lahaa cadaalad waarta. Inkastoo aan lagu eedeynin dil ula kac ah, haddana wuxuu helay xukunkii ugu badnaa oo ah ku dhawaad 27 sano oo xarig ah.